subxaanallah qof bini aadana een curyaan aanan ahayn ee nafaqa darro iyo gaajo la gurguuranayo ee ku nool magaalada Muqdisho asigoo sidaas xaaladiisu ay tahay ayaa haddana waxaa sugayo caruurtaas waxa aan cunayno iyo caruurta aan korsanayno waa imtixaan walaal macaan muuqaalkan hadduu soo gaaro u sheer garay si aabbahan dhibaataysan iyo caruurtan uga helaan gurmad ummadda Soomaaliyeed ee sadaqada jecel aniga waa tagi waxaana sababsaday gaajo iyo nafaqa darro hanuun aan u haysan shilin aan kanin ku gato anigoo sidaas ah ayaa haddana anigoo saas ah caruurtan isugaysa waxa ummadda Soomaaliyeed ka codsana aniga waa tagay caruurtaas halii badbaadiyo si ay wax iigu taraan markaan qabriga galo walaalayaal diin halii baro una halii siiyo halii tarbiyeeyo dayacaad haliigu baxsho waxaan ahay aabe Soomaaliyeed gaajo ima aluul ay hayso xoog ilmihiis waxa ku taraan aan haynin caruurtaas yariirista ah halaga ejersado waa caruur Soomaaliyeed dalka iyo dadka walaha u tirayaan ilaahow caruurtayda qofkii u gargaaro ilaahow u gargaaro murugta adiga haddii haysa beriga ilmahan yaryar agtii fadhiya oo abaabana ilaah anigan waxaan u hayan leh waa iiga sii daran walba Soomaali weyn haddii wax laska qabo أنا وابتغي بالمهن اللي بيت بالي أقوتها أبا نربت بالي أبا عروس نربت بالي أبا نصب ما حوالي أنا إد أبا نربت بالي أبا لما mar allaala markii uu codsi u dirsaday aabahood ummadda Soomaaliyeed caruurtii oo dhan way ooysay waxayna ka rajeynayaan ummadda Soomaaliyeed inay caruurtan aabahood u badbaadi doonto ayagana ay ka saari doonaan dayacaadda maanta dunida ku haysata aabahan badbaadi eeda hawariya ada maanta garabaadan kan baahna aabahan gaajo dhimana hanaan badbaadi waxaan ay gabdho Soomaaliyeed garaban baahna aabahan booskiisana la buuxiyo waxbarasho iyo nolol baahna aabahan isbitaal aabahan badbaadi aabahan gaajo noo dhimalawa nafaqa darro dhimalawa yaa Soomaaliyeed maanta aabahan noo badbaadana aabahan caruur Soomaaliyeed wadacan maanta mujaalaan Soomaaliya garab qoyskan markaan soo booqanay waxaa ii sheegay qof Soomaaliyeed wuxuuna igu dhahay qoys Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku dhimanayaa gaajo darteed degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho markaan reerkii dul imid in soo booqday waxaan la kulmay xaaladan aabe macluul iyo gaajo ay hayso ayna u dheertahay caafimaad darro aan waxba u awoodin caruurtiisii caruur u badan gabdho iyo wiilal